inaad maartay ama aad u diidan nikax waxaan u diiday waxa jirta dhaqan aan garan jirin ama maartay waxyaalaha aan garanaynin ba meesha ka dhacay waxaan noo caadada oo garanayna shariicadeedana maartay aan hor imaadaynin gabdhaha aan guurina in maartay neef geela ama qaalin geela ama sideed neef aare ama taati ugu badan 100,000 waa ahaan damba arrimahaas kala jirtay shal marka waxa liigu imaado leeyahay gabadha waxaad ku nikaxaysaa nikaxeeda waxa weeyaan waa 100 gram oo dahab ah shilinkeeda lagu qiimeeyay 1 milyan ama ka badan saadaradeed ayaan diiday oo ma arka inaan nikaxaan u diiday gabadhaas arintaasna waxa watay run ahaantii aabaheedu baa watay labada isguursanaysa ma ahay maxaa yeelay waxay ii sheegeen labada isguursanaysa ama wiilka gaar ahaan hadii sheegay in 100,000 oo shilinka Kenya maarkood inaad yahay laakiin gabadha aabaheed ayaa waxa soo dhan diiday oo yiri 100 gram oo dahab waayo oo dhiganta shilinka 1 milyan oo lacag Kenya saadaradeed anoo ka baqay bulshadan hadda fasaad lagu jira oo guurkii ma aragtay maxaan ku raad iska culis yahay inaad ma aragtay fasaad anoo ka baqaa darteed arintaas hor istaagay ayaan diiday saadarada waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam taas macnaheedu waxay noqonaysaa de gabadha maharkeeda qaali laga dhiga inuu ma aragtay wax isguursaday la waayo dhalinyarada ay guurlaan joogan gabdhihi sidoo kale ay noqdaan fasaadka ka dhaca waxa kale meesha ku jirto hadii gabadhii la 1 milyan aluunka ay xal dhaha ninkana meesha waa ka tagay gabadhaas ma guursan kara meesha marka waxa dhacay tafarruq taasna waxay noqonaysaa macnaheeda laba ruux israbtay waxay soo galaysaa fala ta'duluhunna an yankahna azwajahunna idha taradu baynahum hadii laba ruux isku qanacsiin guurka ha ka istaajirina ha u diidina ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay hadii loo diiday fina imaadaysa saadaradeedana waan diiday marka inaan nikaxa kulay soo gaartana waxaan maqlay kulay marka aan maqlay qaaliga ayaan nikaxay arinta waa sidaas marka walaal waxaan ugu baaqaa dadka muslimiinta ah guurka maxaan ku yiraahdaa in ma arta raqiis laga dhiga aan culays laga dhigin nabiga kaleey salaatu wasalaam waa kana leh a'lamu nisaa barakatan aysaruhunna mauna islaanta la guursanaya mid ugu baraka badan